waxaan joogaa magaalada Schengen noloshaada ma maqashay heshiiska Schengen fiisaha Schengen iyo soo kale isku taga ururka ama midowga Schengen doontan aad arkaysaan waa doontii lagu aasaasay heshiiska Schengen soo kale magaalada waxa ku yaala meel taariikhi oo gebi ahaanba ay soo boqdaan boqolaal meel dhow waxaan ku arki doonaa waxaan joogaa magaalada Schengen noloshaada ma maqashay heshiiska Schengen fiisaha Schengen iyo soo kale isku taga ururka ama midowga Schengen oo wadamo badan oo EU-ya oo 22 wadan iyo 4 wadan oo EU ka baxsan ay ku jiraan waxaan joogaa doontii lagu saxeexay heshiiskii Schengen laga bilaabo 1980kii oo wadamada Benelux ku aasaaseen ilaa maanta uu marayo wadamo 26 24 kamid ay yihiin wadamada Yurubiyaanka afar wadan ay yihiin wadamada Yurubiyaanka baxsan walow wadamo badan laga diiday Schengen inay ku soo biiraan oo Bulgaria iyo Romania ka tirsan wadamadaasi ugu dambeyn waxa soo gaaray destination kani heshiiska Schengen waxa ku jira 22 wadan oo EU-ya iyo 4 wadan oo ka baxsan wadamo laga diiday ayaa jiray Schengen oo 2011kii soo dalbaday marar badan waxaana kamid ahayd Liechtenstein soo kale Romania iyo Bulgaria ugu dambeyn 2011kii waxa la aqbalay wadanka Liechtenstein oo kamid noqday wadamada aan ku jirin EU-ga laakiin heshiiska Schengen ee xuduudaha ku jira Switzerland qayb ayay ka tahay soo kale Iceland qayb ayay ka tahay laakiin gebi ahaan waxay Schengen ka kooban tahay 26 wadan oo gebi ahaanba xuduudahoodu isku furan waqti xaadirkan la joogo wadamada laga diiday waxa kamid ahaa Bulgaria iyo Romania oo gebi ahaanba loo astay ama loo sababeeyay in xaalada amni darro dhexdooda ka taagan yihiin iyo musuqmaasuq baahsan oo gebi ahaanba aan Schengen la aqbali karin 2017kii weeraradii ka dhacay magaalada Paris ayaa gebi ahaanba qayb ka ahaa in la adkeeyo wadamada soo galaya heshiiska Schengen ee wadamada EU-da isku furka xuduudaha iyo ganacsiga Benelux heshiiska Schengen waxa bilaabay 1985 oo isku afkartay wadamadii loo qoon jiray ama loo yaqaan Benelux wadamadaas waxa kamid ah dalka Luxembourg dalka Belgium iyo dalka Holland ugu dambeyn heshiiska dardartiisa waxa ku soo biiray dalka Germany iyo dalka Faransiiska ugu dambeyn heshiisku waxa uu noqday mid Talyaaniguna uu qayb ka yahay haddaba Schengen waxay kamid tahay wadamada xuduudaha Yurub in la isku furo sababta uu ahaa magaalada lagu aasaasay waa magaalada aan joogno soo kale doontani waa doontii lagu soo dhaweeyay baarlamaanka Yurubiyaanka xilligaasi dabcan ee heshiiska ku saxeexeen walow Benelux xilligaasi ay amba qaaday heshiiskani oo qayb ay ka ahayd taariikho hore aynu hore ku sii arki doonaa boqolaal dalxiisayaal iyo kumanaan dalxiisayaal Yurubiyaana ayuu sanad kasta wadankani soo hooyaa ismahan iga dambaysa waa European Museum Schengen oo magaalada Schengen ku yaala waa museumka ugu weyn ee gebi ahaanba ku yaala magaalada Schengen waxa lagu soo ururiyay taariikhii laga bilaabo 1944kii dagaalkii labaad adduunka ilaa xilligan la taagan yahay iyo aasaaskii fiisaha Schengen run ahaantii museumkan waxa lagu soo bandhigaa taariikh aad u badan boqolaal iyo kumanaan dalxiisayaal ayaanu sanadka soo hooyaa waliba xilliga lagu jiro xagaaga Yurubiyaanka walow xilligan ay tahay xilliga Olombikada socdaan oo sanadkan aad dalxiisayaashu soo dhaceen laakiin waa mid kamid ah museumada ugu waaweyn ee taariikhiga ee gebi ahaanba Yurubiyaanku ay ku faanaan waxaanu ku dhex yaalaa bartanka magaalada Schengen oo ah magaaladan dalxiiska aynu ku joogno maanta biyahaanba heshiisyadii iyo dardargelintii heshiiska Schengen wadamo badan ayaa ka shaqeeyay ilaa laga soo gaadhay taariikhdani halkan waxaad ku aragtaa 13kii December waa magaalada waxa lagu qabtay Lisbon 2007 soo kalena waxa jiray magaalooyin badan oo laga qayb qaatay si heshiiskani uu noqdo mid adag oo wadamo badan oo Yurubiyaana ama EU-da ay qayb ka noqdaan soo kale waxaad ku aragtaa 2 October
1997 magaalada Lisbon wuxuu ahaa heshiisyadii lagu tixgelinayay ama lagu dardargelinayay in heshiiska Schengen gebi ahaanba uu noqdo mid meel mara walow 1995 ay noqotay xilligii ugu horeysay heshiiska Schengen si sax ah uga shaqeeya wadamada Benelux qayb kamid ah soo kale waxa ku arkaysaa wadamada Benelux qayb kamid ah soo kale dalka Talyaaniga Faransiiska iyo dalka Germany oo qayb ka ahaa 2 February 1992 waxaana lagu qabtay magaalada Maastricht soo kale waxaad ku arkaysaa ilaa laga soo gaadhayay dagaalkii labaad adduunka intii wixii ka dambeysay gebi ahaanba 14 June 1985 waa markii Schengen magaaladan hadda aan joogno maanta gebi ahaanba heshiiskani gebi ahaanba lagu saxeexay ee wadamada Benelux isku yimaadeen oo Jarmalku qayb ka ahaa iyo Faransiisku walow xilligaas la isku afgaran waayay oo ay adkayd soo kale waxaad fahmaysaa ganacsiga iyo isku dhex socodku inuu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ka bulsho ahaan halkan waxaad ku arkaysaa Roma 9 Maaris 1957 xilligii laga salaatay dagaalkii labaad adduunka inuu ahaa aasaaskii iyo bilowgii in la isku afgarto heshiiskani wala uu qaatay xilli badan halkan waxa ku arkaysaa 18 Abriil 1951 magaalada Paris ayaa lagu qabtay dagaalkii labaad adduunka xilliga uu soo dhamaaday ganacsigu waa waxa ugu muhiimsan ee bulsho isku dhex gal karto gebi ahaanba imse jeer ayaad maqashay baasaboorka Schengen ama heshiiska Schengen doontani waa doontii lagu aasaasay heshiiska Schengen ee wadamada Benelux gebi ahaanba ay ku aasaaseen soo kale waxa lagu iibiyaa taariikhii iyo dhacdooyinkii intii lagu jiray heshiiska Schengen 1985 wadamada Benelux waxay isku afkarteen inay aasaasaan heshiiskii loo yaqaan Schengen oo lagu aasaasay magaaladani isla doontani aan saaranahay sidoo kale halkani waa webiga Mosel oo ah kala qaybiya laba wadan halkani wadamo badan ay ku kala duuba oo Luxembourg Faransiiska iyo Germany ay ku aasaasay yihiin webigan Mosel waa mid kamid ah webiyada taariikhiga ah ee xuduudaha wadamada u kala qaybiya soo kale webigan wuxuu qayb ka yahay heshiiska Schengen maadaama isku furkii xuduudaha xilligaasi lagu amba qaaday doontan aan saaranahay ilaa xilligan waxay wadankan soo hooyaa ama magaaladan soo hoysaa dad kumanaan dalxiisayaal oo sanad kasta yimaada Schengen goorma ugu horeysay maqalkayga baasaboorka Schengen webiga Mosel waa webiyada ugu layaabka badan adduunka meesha uu maro gebi ahaanba iyo xuduuduna ku beegan tahay ma aaminaysaa webigan Mosel wixii dhankan ka soo xiga imiga waa dalka Luxembourg wixii dhanka ka xigana waa dalka Germany hadda fiir tusaalo kale guryaha soo jeeda ama dhismayaasha soo jeeda gebi ahaanba waxa laga maamulaa oo cashuurta ka qaada dalka Germany soo kale Luxembourg waxa cashuurta ka qaada Schengen iyo agagaarkeegan soo kale halkani waxa ku kala qaybsata buudadan saddex wadan oo wadanka Faransiiskuna qayb ayuu ka yahay buundadan wadamada ay kala qaybiso gebi ahaanba wadamadan Schengen heshiiskiisa ku saxeexan ama fiisaha ku saxeexan waxa ugu awood badan oo ugu horeeyay wadamada Benelux loo yaqaano soo kale webigan Mosel waa mid kamid ah webiyada loo soo dalxiis tago ee wadamadan aadka isugu xidha waliba xilliga kulaylaha ee xagaaga lagu jiro halkan waxa ku arkaysaa boqolaal lamaanayaal oo maalin kasta soo dalxiis taga qaarkood ay halkan jawi ku qaataan kuraasidan iyo webigan degan maadaama wadankan gebi ahaanba wax bad aanu lahayn waxa uu leeyahay boqolaal webiya oo meesalna qayb u ka yahay runtii gunaanadkii hadda halkan soo gaadhay oo intaas oo muuqaal soo daawatay legend ama legend ba tahay muuqaalkan waqti badan baa la geliyay soo kalena like share iyo inaad follow soo dhahdo isku taray garee si aad muuqaal sano kale u qurux badan taariikho iyo socdaale aad u badan isugu jira aad markaa soo aragto inta muuqaalka la mid ku kulmi doono waa Mustafa oo kamarada badeeda inoo taagan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh